guddoomiyihii hore ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa uga digay dowladda Soomaaliya inay fududeysato banaanbaxyada ka dhacaya magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gado kaasoo cadaalad loogu raadinayo dad halkaasi lagu laayay. Wariyaheena Mahad Istiila ayaa warbixinta halkaasi nooga soo diray. guddoomiyihii hore ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Xuseen Ukun ayaa ka hadlay arrimaha ay salka ku hayaan banaanbaxyo rabshado watay iyo dilal kala duwan oo ka dhacay gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo sida dad badan ay aaminsan yihiin in ay ahayd dadku askariga la dilay labada wiil ee dhalinyarada dilay bil ka hor inay diidan yihiin in la dilay ma ahan waana arrin dadka si khalad ah loogu sheegay arrintaas dadku ma diidaneen mana kan banaan bixin wiilka dilkiisi ma ahayn waxay ahayd sababta arrimo ka horeeyay dilka wiilka oo jiray oo dadkaas ay sugayeen ama tirsanayeen ah in dad ayagu u dhashay oo deegaanka ka mid ah oo askarta dawladda dishay sanad ka hor in dadkaasi xukunka lagu riday la keeno xukunkiina lagu fuliyo oo ah in la dilo dadka ayagoo taa sugayay baa waxaa dhacday wiilkan in la soo hormariyay oo muddo bil ka yar xukun lagu riday in magaaladii la keenay lagu dilay marka dadku waxay ka banaan baxayaan oo sida labada maalin keenay in khalaas magaalada ay ka dhacday banaan baxayo in ay sugayeen dadka hore dilay askarta dawladda ka tirsanaa in la keeno oo wiilkan iyo ayagu ay isku xukun noqdaan gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ukun ayaa ku tilmaamay arrimaha ka jira Balad Xaawo inay tahay cadaalad darro ay tirsanayaan dadka dhigayay banaanbaxyada oo markii dambe ay nabadoonnada gobolka u qabteen in muddo 5 maalin ah cadaalad ku heli doonaan sida nabadoonnadii degmada Balad Xaawo qaar kamid ay la hadleen dadka markay la hadlayeen waxay u ballan qaadeen dadkaasi waxay ka cabanayaan oo ah in 5 cish gudahood lagu keeni doono dadka ay maxay ahayd dadkoodii laayay in 5 cish gudahood lagu keeni doono arrinta ayada ah dadka deegaanka weli kuma qanacsana oo ballanqaadkaas inuu fulayo kuma qanacsana laakiin dadku waxaad moodaa in ay taagan yihiin qodobka ah haddii 5 cisho oo la sheegay dadka lagu keeni waayo inay qaban doonaan banaanbaxyo abaabulan oo ka dhici doono 7 degmo ama 8 degmo ee gobolka Gado ilaa laga keenayo dalbashadooda ay dalbadeen dadka gacan ku dhigalayaalka ee dadkooda laayay ilaa la keenayo arrintaas way arrinta kale u baahan in mar labaad laga fiirsado gudoomiye Ukun ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dawladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Gado iyo kan degmada Balad Xaawo inay san fududeysan arrimaha cadaalad darrada ah ee ay ka cabanayaan dadka deegaanka isagoo dhanka kale shacabka gobolka kula taliyay inay nabadda iyo xasiloonida dhowraan anigu markaa waxaan ka digayaa shakhsiyan oo tala ku dhiibaya in dawladdu gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay arrinta ayada fududeysan dadkan maamulka ah ee gobolka gaar ahaan degmada in ay dawladdu indha gorgor ku eegto indha gorgor in lagu eego maamulka degmada dadka hadda matala they are not entitled to be in that position dadkaasu dad ule ma ahan awoodda mas'uuliyadeed ay qaadi karaan oo inay dadkaas ku matalaan dad le ma ahan cadeynteedana waa mid hadda aan ka sheekaynayno Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika